سائلك وهرية وحولية هي markay jamaacada tukanayso safka dhaxdiisa kursiga ay dadka dhigtaan safka wax ma ka hadlaynaya safka ma kala goynaya oo faa'iido la yibaarik fiik kursiga wuxuu safka kala goynaya haddii ruuxa ku fadhiyo uusan salaada ku jirin sanada sheegayni hadduu isaga fadhiyo tukanaynin waa kala goyn laakiin hadduu salaad tukanayo ruuxiina uu macduur yahay oo dadka loo ogol yahay inay kuraasta ku tukadaan uu ka mid yahay markaasi saf kala goyn ma aha laana wax weeyaan ruuxa ku fadhiyay safkiiba ku jira kaliyata sidii duruuftu ugu saamaxayso hadduu dhinac mari karo waa fiican tahay oo ama dhanka dhamaadka midigta ama bidixda dhamaadkeeda laakiin dadkoo dhan ma wada heli karaan marka insha Allah taala waa arin ay cudurdaar leh oo duruuf keentay mushkilo ma leh wallahu a'lam sheekhana ilaahay ku barakeeyo saailka xiga wuxuu leeyahay salaatul leylka habeenkii inaan habeenkii qaybtiisa hore inaan tukado iyo inaan habeenka qaybtiisa dambe tukado midkee fadli badan waan ka jawaabnay darsiga gudihiisaan kaga jawaab waxaa fadli badan habeenka gelinkiisa dambe laana ilaahay tabaaraka wa tacaala gelinka dambe uu soo dagaa habeen kasta sida xadiidka mutawaatirka ku sugan markaas wuxuu leeyahay man yad'uuni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tiya ya weydiistoon siya ya ibaryoonka ajiiba ya dambi dhaaf weydiistoon dambi dhaafa marka xilliga dambe baa fadli badan wala shaka fi dalika wallahu a'lam qofka saa'ilka waxaan filayaa sagaalaad wuxuuna weydiinayaa sujuudu sahwiga siyaado iyo nuqsaan ma salaada intaan laga bixin baa la sujuudaa sujuudu sahwigu salaadaadu marna adxiyaad dhaxiya inaad ka tagtay way dhici kartaa wax ka dhiman yahay oo la sujuudayo marna inaad wax ku dartay oo salaadii afarta ahayd shan aad tukatay way dhici kartaa oo halmaan ugu tukatay laba gooraba sida ugu wanaagsan intaadan salaada ka bixin inaad salaamo naqsato way saad khilaafka uga fogaato salaadoon laga bixin in la salaamo naqsan karo intaan ogahay khilaaf kama jiro laakiin salaada aad ka baxdo ma salaamo naqsan kartaa adilada qaar ku yimaadaani laakiin mas'ala khilaaf ka jira way cibaadaadka iyo salaadaha waaweyn waswaas badan bay dhalisaa masaa'il khilaaf wad ka maarmi kartaa hadaad gasho sadarteed qofka waxaan ku wanaagsan on khilaaf ka galaynin salaadiisa inay asaxday haddii uu salaamo naqsiga ka hor uu sujuudu sahwiga la yimaado qofka isagoo cilmigeeda iyo aqoonteeda la garanaya shubha iyo waswaas aan ka dhalanayn hadday ziyaado tahay inta uu salaamo naqsado kadibna sujuudu sahwi la yimaado haddana mar labaad si qof salaad ku noqday buu la xukun yahay salaamo naqsi labaad waa la iman karaa halkaana wuxuu kuu sheegayaa shay muhim ah oo dadka in badan ay moog yihiin salaada taraawiixda markay dhammaato oo ragcadda keligeeda oo ugu dambaysa imaamku uu ka salaamo naqsado waxaa sunno ah imaamka iyo dadka kaloo ma'muumiinta ah kulligood in qof walba uu iskiis u yidhaahdo subxaana almaliki alquduus 3 jeer ayuu ku dhawaaqayaa midda ugu dambaysa oo saddexaad cod la maqlahayo kor u qaadahayo ayuu qofku leeyahay waa in la xifdiyaa oo sunnada la ilaaliyaa dadka markay salaada la dhamaato kulli waa iska dareerahayaan qof oranaya naadir weeye waana kelimad sahlan oo aad u weyn weeye ilaahayna subxaanahu wa tacaala xumaan oo dhan ayaa ilaahay laga hufaya macnaheedu waxa weeye subxaana almalik allaha maliga ayaa xumaan oo dhan ka hufnaaday alquduus allihii tahirnaanta badnaa subxaana almaliki alquduus weeyaan 3 jeer buu leeyahay marka saddexaad oo ugu dambaysana codka ayaa kor u qaadaysa
salaada taraawiixda laba ragcadood oo kasta marka la xidhanayo ma lala imaanayaa ducada oo iftitaaxa lamama imaan kartid sida asalka in lala yimaado waaye laakiin hadda muxuu ahaayey a'immadu siday dadka ku tujiyaan wayba adag tahay laana imaamku markiiba faatixadu bilaabaya haddii imaamkaagu faatixada akhrinayana wax faatixada ka badan hadduu qur-aan akhrinayo qur-aankiisana aada maqlayso wax faatixada ka badan ma akhrin kartid laa iftitaax walaa mid hore ilaa walaa wax ka dambeeya toona faatixada wax ka horreeya wax ka dambeeya toona lama akhrin karo waxayna yacni ku fadhidaa waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu istimaac markaa dhegaysi baad gelaysa faatixadaas oo iyadana hadal badan ku jiro unbaa laga soo reebaya laakiin wixii kale maya asalkiisu waa inuusan bannaanayn